doorkan Jubbaland doorasho dhici dimuqraadi ay dadweynuhu sugayn baaldiyari Dr. Cabdullaahi doorta waxaan rabaa marka reer Jubbaland inaan u ballan qaado anigu inaan noqon doonin musharax ama madaxweyne qoys ee aan noqon doono mid qabaa'ilada Jubbaland u dhaxeeya waxaan ahay qof aqoon-yahan ah waxaan ahay qof reer Jubbaland ah laakiin haddana waxaan samayn doonaa waxay tahay inaan qori qaado xabad aan rido deegaanada dadka reer Jubbaland gacantooda ka maqana in gacantooda lagu soo celiyo barnaamijkayga siyaasadeed mudnaanta koowaad waxa uu siin doonaa dhalinyarada marka waxaan leeyahay dadku inta wanaaga iyo qalbi wanaaga ay ka ahayd markaanu Kismaayana tagno Bu'aalana tagno waxay dhihi doonaan walle waa shaki baxnay waxaanu ku xurmayn doonaa dawladda federaalka iyo hoggaankeeda waxa uu dastuurka Soomaaliya uu xaq u siiyo waxyaabahaas oo aan hubsan doono ayaguna in waxa ay dawladda federaalka xaq u leedahay in aysan dawladda federaalka ku xadgudbin anigu caawa farxad ay tahay inaan halkaan waqtiga kula qaato aan dhageysto dad badan oo Soomaaliyeed dhalinyaro leh siyaasiyiin hore salaadiin culummo waanadooda iyo tala bixintooda wax badan ay igu filan tahay sidoo kale in aan helo fursadan oo hadafkayga siyaasadeed iyo sababta aan isugu taagay musharaxnimada Jubbaland inaan la wadaago dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa Nairobi iyo bariga Afrika ee sharaf ay ayaduna ii tahay inta markii laga gudbo anigu shakhsiyan taariifintayda waxaan isleeyahay marar horena waanu ka hadlay asxaabta iga horeysay oo aqoon badan ii leh sida saaxiibkay Faarax Bila waxbuu ka taabtay marka waxaan isleeyahay taasi waxba kama oranayo waana dareemayaa waa waqti dambe in badan oo idinku idin ka mid ahna waxaa laga yaabaa saacadihii hurdada in la dhaafay caadada idin ahayd marka waxaan isku dayayaa in aan barnaamijka si toos ah u guda galo anigu laakiin waxay iiga dhigan tahay waxa la yiraahdo socdaalka ama geediga dib u curashada Jubbaland waxaan rajaynayaa geedigaas inuu noqdo kii lagu nasto oo lagu nagaado haddii kaasi aan wax yar ka iraahdo waxaan rabaa waxa la yiraahdo Jubbaland waxa ka hadleen salaadiinta iyo raggii halkaan nala joogay kamid ahaa saraakiishii soo dagaalamay Jubbaland markii xuduudka laga tilaabay muddo 4 sano ka hor ah socdaalkaas oo lagu tagay magaalada la yiraahdo Kismaayo marka koobaad waxaan rabaa inaan xuso dhalinyaradii mujaahidiintii odayaashii raggii naftooda ku waayay dagaalkaas deegaano kamid ah Jubbaland looga xoreynayay argagixisada waxaan alla uga baryayaa in uu jannadii ka waraabiyo ehelkii ay ka tageenna gadaashood inuusan dulaynin sidoo kale dad fara badan oo Soomaaliyeed ayaa qayb ka ahaa barnaamijka oo uu hoggaankiisa lahaa Professor Gandhi oo dad inta badan ay yaqaanaan fikirka Jubbaland ninkii curiyay isagu ahaa hase ahaatee markii la tagay meesha la yiraahdo Kismaayo oo maamulkii in udubada loo dhisa ahayd waxay dadka intooda badan garteen Maxamed Axmed Islaam in loo dhiibo xilka si marxaladii markaa lagu jiray dadka reer Jubbaland uu uga saaro dadaal badan ayaa loo maray 13 sano la soo dhaafay waxbaa qabsoomay dawlad goboleed Jubbaland la yiraahdo mandate dawladeed haysato
dadkeedu ay ayidsan yihiin dad dowladda soomaaliyeed ee federaalka ana ay aqoonsan tahay beesha caalamka iyo waddamada deriskana ay la shaqeeyaan ayaa halkaasi cagaheeda isku taagtay waxayna ka mid tahay horumarka iyo guulaha la gaaray hase ahaatee waxaan rabaa 13 sano ee lasoo dhaafay waxa Jubbaland ka qabsoomay waa wax lagu qaban karay 3 sano wax ka yar 10 sano oo Jubbaland ay aasaasnayd ayaa dadka reer Jubbaland ka habsaantay deegaanada Jubbaland intooda badan gacanta dadka reer Jubbaland kuma jiraan waxay gacanta ugu jiraan urur argagixiso ah oo shabaab la yiraahdo dadka Soomaaliyeed ee deegaanada degan in badan oo kamid ah way ka soo qaxeen dhibaatooyinkaasi ay al-shabaab ku hayaan in badan oo kamid ahna waxay ku hoos nool yihiin cadaadiska uga imanaya al-shabaab haddii marka mar uu xaalku sidaa yahay waxaa iyaduna meesha ka baxday dowlad goboleed Soomaaliyeed oo dadka Jubbaland ay wada leeyihiin waxa ay ku leeyihiin aysan cidna marti uga ahayn adeegi iyo agaasinkii dadka Jubbaland inay u qabtaan la doonayeen ay ka gaabiyeen sidoo kale sida aanu ognahay waxaa sababay isfahan waa soo dhaxmaray dowladihii hore ee federaalka ah ee Soomaaliya sidaas la mid ah iyaduna dad badan oo Soomaaliyeed oo bulshada dhexdeeda ku lahaa magac iyo mansab ay ka mid yihiin siyaasiyiin salaadiin dadka ciidamada u soo halgamay Jubbaland ee madaxda ka ahaa ayaa waxay kaliftay kala duwanaansho afkaar awgeed in ay ka haajiraan deegaanka Jubbaland anigu marka haddii dhibaatooyinkaas oo dhan ay jiraan waxa aan isku taagay ee socdaalka uu ku wajahan yahay waxay tahay maamulka hadda jiro ee Jubbaland oo waqtigiisii uu dhamaaday muddo sanad laga joogo sanad ay ku darsadeen oo sharci darro ahna uu dhamaaday in meesha laga saaro oo la bedelo dadku waxay yiraahdaan inta badan waxa la isweydiiyaa doorashada Jubbaland goormay dhacaysaa weydiiyaa madaxweynaha Jubbaland goormuu doorasho qabanaya waxaan rabaa dadka reer Jubbaland inaan u sheego doorasho isbedelka iyo doorashada waa lagu qasban yahay dadka reer Jubbaland ayaa iska leh iyaga ay gacantooda ku jirtaa wixii hadda ka dambeeyana ma daawan doono in laga warwareego qabashada doorasho xor iyo xalaal ah qaabka aan doonayna doorashada in loo qabto waxay tahay waa marka koowaad dadka dhaqanka ah ee reer Jubbaland ee salaadiinta ah in ay noqdaan dadka xaqa u leh in ay soo xulaan cid wax dooranayso ayagoo matalayo beelaha ay ka soo joodaan dawlad iyo nidaam kasta oo jirana uu sanfarigelin ku sameeyeen sidoo kale waxaan qasbi doonaa inay dhacdo doorasho meel dhaxdhaxaad la isugu imaanayo guddiga doorashada uu dhaxdhaxaad yahay goobta lagu qabanayo ay dhaxdhaxaad tahay talada iyo processka iyo jadwalka lagu qabanayana ay dadka u dhaxayso mar haddii doorasho ay dhacdo anigu haddii aan noqdo qofka loo doorto madaxweynaha Jubbaland oo Ilaahay uu qadaro waxyaabaha aan damacsanahay ee ugu horeeya waxa weeyaan in la xoreeyo deegaanada shabaab gacanteeda ku jiro waxaan rabaa in aad la wadaago dadka reer Jubbaland iyo guud ahaan dadka Soomaaliya in wixii hadda ka dambeeyo sidaan hore u sheegay marar hore aanu ambaqaadi doono abaabulka iyo wax ka qabashada xoreynta deegaanada ku jiro gacanta shabaab
mar haddii deegaanka la xoreeyo intaanan taa u gudbin waxaan idhahdaa inaan wax ka idhaahdo dad baa waxay isweydiiyaan nin dhallinyaro ah naan saaxiibo nahay ayaa wuxuu igu yidhi isagoo ii muujinaya taageero kolleyba waxaa tahay nin dhallinyaro ah oo qurba joog ah oo wax bartay oo aqoon-yahan ah waxaan isleeyahay qori ma qaadi doontid ciidan ma abaabuli doontid xabadna ma ridi doontid waxaan rabaa arrinkaa inaan caddeeyo intaasi waa sax waxaan muddo ahaa qurba joog waxaan ahay qof aqoon-yahan ah waxaan ahay qof reer Jubbaland ah laakiin haddana waxaan samayn doonaa waxay tahay inaan qori qaado xabad aan rido deegaanada dadka reer Jubbaland gacantooda ka maqanna in gacantooda lagu soo celiyo hal laakiin waxaan rabaa iyaduna inaan caddeeyo qorshahayga kuma jirto in dhallinyarada ciidamada reer Jubbaland deegaanka qabtay difaaca ugu jiro ehelka ah soo wada shaqeeyay in aan colaad dhaxdooda ka rido ayaga qoryo isugu dhiibo qorshahayga ka mid maaha waxa kale oo doonaya waxay tahay haddii deegaanka la xoreeyo qorshayaashayda waxaa ka mid ah dadka reer Jubbaland ee deegaanadooda ka qaxay in dib loogu soo celiyo waxaanu samayn doonaa barnaamij aan kula wadaagay dadka ajandahayga siyaasadeed oo muujinayo in dadka deegaanada ka soo qaxay loo samayn doono magaaleyn in deegaanadooda lagu celin doono in loo samayn doono waxyaabaha asaasiga ah ay u baahan tahay ay u baahan yihiin si deegaanadooda ay ugu noqdaan ayna u degaan waxaan rabaa marka taas haddii la sameeyo dadka reer Jubbaland waxay u baahan yihiin in la isku furfuro waxaan u baahanahay dadka reer Jubbaland in qabaa'il colla ah inuusan jirin waxaan rabaa inaan caddeeyo dadka reer Jubbaland waxa ay ka dhaxeeyo waa ehelnimo xididnimo deegaan wadaag dal wadaag haddii ay jiraan dad siyaasiyiin ah oo abuuray xiisad lagu kala qoqobayo dadka reer Jubbaland taasina meesha waanu ka saari doonaa waxaan rabaa inaan caddeeyo anigu deegaanada Jubbaland saddexda gobol ay ka kooban tahay mid kastoo ka mid ah waqti baan ku qaatay noloshayda ka mid ah dadku deegaanka sida ay u degan yihiin waxa ay isku yihiin wanaagga ka dhaxeeyo iyo ehelnimada aqoon dheeraada ayaan u leeyahay waxaan rabaa marka reer Jubbaland inaan u ballan qaado anigu inaanan noqon doonin musharax ama madaxweyne qoys ee aan noqon doono mid qabaa'ilada Jubbaland u dhaxeeya hore halkan waxaa ka hadlay waxa dad ku hadlay Soomaaliyeed maay iyo maxaatiri waxaan isleeyahay dadka Soomaaliyeed waxay isku fahmaan ay communication-ka iyo wax isku gudbiyaan waa labada luqadood waxaa kaloo Soomaalida loo kala qaadaa jareer iyo jilaa waxaan rabaa inaan labaduba maay iyo maxaatiri inta ku hadasho inta la yiraahdo jalaal iyo jiraac jareer iyo jilaa waxaan rabaa labaduba si kastoo u kala qaadaba dadka Soomaaliyeed ee Jubbaland oo laga helo deegaanada si bar ah oo cadaalad ah oo ayaga dhan u dhaxeeyo inaan ugu adeegi doono waxaan wax ka taabanayaa dhalinyarada Soomaaliyeed aniga hadafka aan ku shaqeynayo waa hadaf dhalinyaro weey barnaamijkayga siyaasadeed mudnaanta koowaad waxa uu siin doonaa dhalinyarada waxaan rabaa sidoo kale waxaan rabaa caawa hortiina in aan ka ballan qaado haddii aan anu madaxweyne ka noqdo golaha wasiiradan dhisi doona 50% waxay noqon doonaan dhalinyaro
sidaas si la mid ah waxaan rabaa dumarka Soomaaliyeed iyo gabdhaha Soomaaliyeed kaliya ma aha in maamulka iyo nidaamka aan dhisi doono ay boqolkiiba 50 ka noqon doonaan laakiin waxay boqolkiiba 50 ka noqon doonaan shaqaalaha dawladda waxaan hubsan doonaa dadka Soomaaliyeed ee dhalinyarada ah iyo dumarka inta badanna siyaasiyiinta in badan aan isleeyahay waxay gundhigu ahaayeen siyaasadii dhowr iyo 10 sano la soo dhaafay ee Jubbaland ka jirtay ay ka hormariyeen wax kasta oo bulshada danaheeda mid khaaska ah in aysan taas dhici doonin waxaan taa uga gudbayaa aan rabaa inaan wax ka yiraahdo ciidamada Jubbaland sida uu halkan ka sheegay walaalkay saaxiibkay Cabdishakuur in badan oo kamid ah ciidamadii reer Jubbaland ee soo dagaalantay ee dhaawacantay ee dhibaatada u gaartay in la helo dawlad Jubbaland oo lagu heedo isku taagto in badan oo kamid ah dibadda ay ka joogaan in badan oo kamid ah wax daryeel ah kuma haystaan dawladda Jubbaland kuwa ku shahiiday waalidkood iyo ubadkii ay ka tageen meel ay dawladda ku ogtahay ma ay jirto aniga waxaan ballan qaadayaa haddii aan noqdo madaxweynaha Jubbaland in aan abuuro hay'ad dawli ah oo shaqadeeda kaliya ay tahay daryeelka ciidamada wax ku noqdo ama ku dhaawacmo ayaga oo difaacayo deegaankooda ayaga iyo ubadkooda sidaa si la mid ah ayaduna waxaan ballan qaadayaa ciidamada ku jira difaaca ee har iyo habeen u taagan inay sugaan ammaanka in laftooda aan u saari doono guddi madax bannaan oo soo qaabeeyo si kor loogu qaadi lahaa daryeelkooda mushaaraadkooda iyo sidaas la mid ah in xilliga ay ka tagayaan shaqada ay u hubsadaan in ay haystaan gunno ay kaga maarmi karaan in ay cid kale gacanta u horsadaan qodobkaas waxaan uga gudbayaa oo aan rabaa inaan hawsha aan hadalkayga ku soo gunaanado inta aan erayada ugu dambeeya aanan gelin Jubbaland waxay ka mid tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya dawladda Jubbaland ee Cabdullaahi Cali oo madaxweynaha ka noqdo insha Allah waxay xaqiijin doontaa wada shaqaynta dawladda federaalka ee Soomaaliya madaxweyne kasta oo xilka yimaado waxaanu ku xurmayn doonaa dawladda federaalka iyo hoggaankeeda waxa uu dastuurka Soomaaliya uu xaq u siiyo waxyaabahaas oo aan hubsan doono ayaguna in waxa ay dawladda federaalka xaq u leedahay in aysan dawladda federaalka ku xadgudbin waxaan rabaa in aan barnaamijkayga ku soo gunaanado waxa la yiraahdo al-shabaab oo hore aan u sheegay dadku marka ay ka hadlayaan dhibaatooyinka ka jirta deegaanka waxyaabaha ay soo qaataan waxay tahay in shabaab loo maara waayay international community iyo beesha caalamka ay waxba ka qaban waayeen dawladda Soomaaliya federaalka aysan waxba ka qaban karin wadamada dariska ana aysan waxba ka qaban karin laakiin aniga waxaan garanayaa cidda wax ka qaban karto cidda wax ka qaban karto waa dadka reer Jubbaland waxaan markaa idiin ballan qaadayaa in dhalinyarada reer Jubbaland ee diyaarka u ah inay jihaadka galaan aan u sameyn doono qorsho iyo meel ay ku soo hirtaan dagaalka ay gali doonaanna wadadii ay u mari lahaayeen inaan u jeexi doono intaas kadib waxaan rabaa dadku qaarkood waxay isweydiiyaan maxaa Nairobi loo joogaa
maxaa loo joogaa Minnesota maxaa Mareykanka loo joogaa Kismaayo gorbee la tegi doonaa kow waxaan rabaa inaan iraahdo Kismaayo waanu tegi doonaa inaan tegi doona kaliya ma aha xaflad tan ka balaaran ma ku qaban doonaa waxaa kaloo aan rabaa inaan ayaduna su'aal ay dadku isweydiiyaan oo yiraahdaan Jubbaland uma baahna musharax waxay u baahan tahay wax horeeyo deegaanadii maqnaa ayaduna waxaan rabaa in aan halkan ka xaqiijiyo hadduu Ilaahay nafta nagu simo bu'aala waan tegi doonaa waxaan rabaa inaan u soo qaato tusaale dadku markay su'aalaha isweydiinayaan inna waa ka daacad oo waxay isweydiinayaan sida hore loo sheegay ninkan shirarka ku qabsanayo waddanka dibaddiisa amuu malxiis yahay taa waxaan idin xaqiijinayaa inaysan waxba ka jirin laakiin waxaan rabaa inaan kaloo sheego dad ayaguna waxaa jiro ujeeddo khaldan kale waxaa jiro wax la yiraahdo wadaadadii hore awliyada ahaa ayaa waxaa la yiri nin awliye ah oo buubi jiray oo kacbada ku soo tukan jiray baa jiray marka xaaskiisii buu uga warramay oo wuxuu yiri anigu kacbadan ku soo tukadaa waxay tiri oo habeelow warkaasi war jira ma aha nin kacbada ku soo tukado ma eg ninkii marka wuxuu noqday nin xujaysan maalinkii dambe karaamada buu iska dayo wuxuu yiri xaaskiisii wuxuu ku yiri marka dambe aan kacbada u buubi doono waxaan rabaa inaad daawato marka waa la ballamay maalmaha ka mid ah xaaskiisii oo goobjoog ka ah daawadaysu buubay wadaadkii marka waxaa laga sugayay inay tiraahdo aw hebelo waxaad ii sheegaysay waan arkay waa runta laakiin markuu buubay oo muddo maqnaa war wadaadada iga sheekeeyay anigu waxaan hubaa ma ahayn goobjoog ma ahayn markuu buubay oo kacbadii ku soo tukaday oo muddo kadib soo laabtay ayaa waxa uu yiraahday ka waran maanta markan ma shaki baxday inaan awliye ahay oo kacbada aan ku tukado waxay tiri oo hebelow intaanan hawshaa la gaarin haddii la buubayo si toosa loo buubaaye ma geesgees baa loo buubaabay tiri marka waxaan leeyahay dadku inta wanaagga iyo qalbi wanaagga ay ka ahayd markaanu Kismaayana tagno bu'aalana tagno waxay dhihi doonaan walle waa shaki baxnay laakiin inta aysan niyad wanaagga ka ahayn markaan bu'aal iyo Kismaayo tagno war kale aan ka sugeynaa intaas waxaan uga gudbayaa waxaan rabaa maalmaha soo socdo waxaanu dhammaystiri doonaa iyo isbuuciyada soo socda wixii kulamo ah oo Nairobi nooga harsan intaa wixii ka dambeeyay waxaan u diyaar garoobi doonaa xilliga aan waddanka gudihiisa aadi doono dadka Soomaaliyeed ee reer Jubbaland waanu la qaybsan doonaa laakiin waxaan rabaa dadka reer Jubbaland inay ogaadaan qoys kasto iyo qabiil kasto oo ay ka mid yihiin dhalinyaro dumar salaadiin barnaamijkan geediga dib u curashada Jubbaland cidna marti ugamay ah anigu musharax ahaan cid si gooni ah mulkiila iiga ah oo mas'uul iiga ah oo la ii soo marayna ma jirto cid si gooni ah qoys si gooni ah aan iyagu danahooda iyo mabaadi'dooda ugu taaganahayna ma jiraan mabda'a iyo siyaasadda iyo barnaamijka aan ku taaganahay waa mid reer Jubbaland oo dhan ay wada leeyihiin
waxaan rabaa marka inaan halkan ka sheego isbuuc kadib waxaan ku dhawaaqi doonaa guddiga ololaha dib u curashada Jubbaland. guddiga waxaa ka mid noqon doono rag iyo dumar Soomaaliyeed oo qaybahooda kala duwan ee bulshada ah. cid allaala ciddii doonaysa inay barnaamijka qayb ka noqoto doorkii ayada kaga aadan ay ka qaadato waxaanu ka codsanaynaa in ay nala soo xiriirto. waxaanu xaqiijin doonaa inaanu idinla fariisano idinla hadalno taladiina qaadano wixii aadna siinaysaan oo tala bixin ana inta badan aanu ku dhaqmi doono.